ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada gorgor هذا هو سنتي wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur isla markaana uu qayb ka yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odawa Yuusuf Raage iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeeray fadhiyada kala duwan ee deegaanada kala ah Xujuub Faaf Gumare Baar Dheere oo ka tirsan gobolka Hiiraan ciidankan ayaa qayb ka ahaa howlgalkii lagu baacsanayay argagixisada arxanka daran ee al-shabaab ee ka socday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur oo la hadlay ciidanka ayaa ugu hambalyeeyay guulaha ay ka gaareen dagaalka lagu jabiyay argagixisada xaaladda maanta aan ku suganno halkaan u joogno sidaad la socotiin muddo 15 maalin ayaad waxaad ku soo jirteen howlgal aan noociisa hore loo arag howlgalkaasi xubnihii ka qayb qaatay qaybta ugu muhiimsan ayaad ahaydeen annagoo og duruufaha aad shaqadaas u qabateen annagoo og xaaladaha aad soo marteen ayaan haddana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin intaad soo gudateen inta hartayna inaad dhammaystirtaan ayaan idinka rabnaa waxaan idinka rabnaa dalkan inuusan ku sii jirin duruufaha uu maanta uu ku jiro dalkan inuusan cadow dambe uusan u afduubnaanin dalkan inuu wiilal yaryar oo maskaxda laga soo khalday uusan dambe uusan u afduubnaanin gabadha Soomaaliyeed aysan u dhibtoonin wiilka Soomaaliyeed iyo waayeelka Soomaaliyeed caruurta Soomaaliyeed aysan u dhibtoonin waajibaadka idinka saaran mas'uuliyadaas oo aad darees u gashateen oo aad u dhaarateen inay qabsoonto dhinaca kale Cabduqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la kulmay ciidanka xoreynta deegaanada waxaana ugu hambalyeeyay guulaha ay la gaareen ciidankaas isla markaana waxa uu sheegay in madaxda qaranku ay qalbi ahaan garab taagan yihiin dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada ay shabaab ka xoreeyeen waan ugu mahadinaynaa waxaan kaloon u mahadcelinaynaa cid walba oo gacan ka siisay adinkiina waxa idinka rabaa nimankii weli ma dhamaan shaqada weli hadday koow tahay faanoola fari kama qodna ayay maraysaa waxaan halkaan idinkugu nimid inaan idin mahadcelino waxaan idinkugu nimid inaan idin niraahno barta ay hadda joogto ha laga sii dhaqaaqo nimankii ha la sii baacsado deegaanada hadda ay ku jiraan ha laga saaro si ummadan Soomaaliyeed ay u hesho meel ay hargasho oo maaragta ay ku nasato